waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu soo afmeeray aqoon isweydaarsi ku saabsanaa miraha nabadda kaasi oo ay iska kaashadeen jaamacadaha ummadda Muqdisho iyo Banaadir isla markaana ay ka faa'iideysteen ardayda jaamacadahan. ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay Dr. Yuusuf Cumar oo ah barihii bixinayay tababarka. waxaan ka hadalay oo kale waxa ubuucdiisu ahayd waxa la yiraahdo conflict transformation oo ah in dhalinyaradu ay kala faa'iideystaan oo ka faa'iideysto oo kala faa'iideysano sidii loo minimize gareyn lahaa loo xadidi lahaa khilaafba inuusan dhicin. tiirarka nabadda inaan fahanno oo ay ugu horeyso waxbarasho, shaqada ku xigto, kheyraadka waddanka laga faa'iideysto, dadka la takooro oon la takoorin oo citizenship yani waddanka loo mataqaana wada sinaado. Maahir Xasan iyo Sawda Cali waxay ka mid ahaayeen ardaydii ka faa'iideystay aqoon isweydaarsigan. run ahaantii waxaa qaadanay 5 maalmood tababar ah oo ku saabsanay miraha nabadda iyo nabadeentaba uu bixinayay Professor Yuusuf Sheekh Cumar. 5 maalin waxyaabihii aan ka faa'iiday barnaamijkan waxaa ka mid ahay guud ahaan wacyigelinta ku saabsan nabadda iyo nabadeynta iyo ka qayb qaadashada bulshada in lagu dhiirigeliyo kaalinta nabadda ay leedahay. run ahaantii waxaa hubaal ah nabadda la'aanteed in aan wax fara badan haddaan ahna bulshada Soomaaliyeed wax fara badan aan ku weynay nabaddana ay tahay aasaaska nolosha. seminaarka training-ku ku saabsanaa oo ka hadlayay nabadda iyo sidii dib u heshiisiin loogu sameyn lahaa dadka Soomaaliyeed maadaama ay ka dhacday colaado tiro badan iyo burbur oo wadankii ka dhacay. soo marka anaga waxaan nahay dhalinyaradii jiilkii hadda soo koraya oo dhan walba ka qayb qaadan lahaa horumarka dalka dhinaca nabadda, dhinaca horumarinta, dhinaca nadaafadda dhan walba. macallinkan runtii wuxuu inoo soo diyaariyay barnaamij aad u muhiim ah. Dr. Ibrahim Maxamed Mursal oo ah gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho ayaa aad u bogaadiyay joogteynta wacyiga la xiriira nabadda isaga oo soo jeediyay in si guud bahda tacliinta kaalin ay ka qaataan dhalinta nabad waarta oo dalkeena ka hirgasha iyo in manhajka waxbarashada dalka lagu soo daro maado ku saabsan nabadda. aynu ka fikirna bahda tacliinta haddii xataa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare lafteeda fikradda in la geeyo oo jaamacaduhuna ay sidooda u qaataan wasaaraduna ay maada ay ka dhigto asaasi ah. dalka nabadiisu ma dhow run ahaan kolkii la fiiriyo in ummadda la wada gaarsiiyo marka ay noqoto thaqaafo guud iyo wax ummadda la wada gaarsiiyo ayay maadadan run ahaan ay ku fiican tahay. dalkeenna oo kasoo kabanaya colaado ragaadiyay sanado badan ayaa weli rajada shacabka Soomaaliyeed tahay in ay mar un ku noolaadaan nabad. ha yeeshee si loo gaaro nabad waa in ruux kasta uu ka qayb qaato sidii lagu heli lahaa.